إن شاء الله تعالى وركوبا وحين كتلمامي دونا سيدينو سو دوينينا أما استقبالينو بشهر رمضان إذا ركن وينو كم إذا أركانت إسلامي قاية نسكدينا إنو نقدنو نبينا عليه الصلاة والسلام صحابة دوا بشارين شري وحديث كسنن النسائي كي الله شيخ الألباني الصحيح لغير كتل ماميو فنبي يقول أتاكم رمضان الشهر المبارك فرض الله عز وجل عليكم الصيام وحيدين يمي بشير رمضان وبالبركة سنة وإلهي سبحانه وتعالى الصوم كيدا يدن كواجبيي البابد الصمد على فراه ما البابد الجنة على فريا البابد النار تنوال حدا يا أبو النبي التلمامي الشياطين تكود واوين مرددة أنا شيطان ماذا كمر حي كوانا la xidhaya waxaa ku jira buu nabigu ku bishaareeyay habeen kun habeen ka fadli badan qofkii khayrkeeda laga mamnuuco ee khayrkeeda heli waaya kaasi waa khayr laa wuu nabigu ku tilmaamaya faqad xurim yani waa mid khayrka laga mamnuucay sida ogeed nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu bishaareynayaa qiimaha ay ku leedahay dadka muslimiinta agtooda iyo sida la rabay in loo weyneeyo dugsiga casri waxa kuugu filan nabigu calayhi salaatu wasalaam weynaynteeda waxa uu ku tilmaamay oo runtii keensanaya in qofka muslimka isku dayo inuu bishatan uu u diyaar garoobo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan sunan ibnu maaja ku yaala sheekh alalbanina uu saxiixinaya ama xasan ku tilmaamayo طلحة ibnu cubaydillah saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay laba nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo mar soo wada islaamay oo islaamnimadoodu mar qura wada ahayd طalxa ayay la joogeen waxaa mide aad buu u dadaali jiray laakiin labaduba waa dadaalayeen laakiin nin baa dadaalkiisu aad u muuqday markii dambena jihaad buu istishaad ku qaato shahiid buu noqday kii kale wuu ka nolol dambeeyey oo sanad buu sii noolaa kadib buu sanad dabadeed kii kale dhintay riyo ayuu ku riyooday markaa طalxa ibnu cubaydillaah riyada wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii looga yeedhayo dabeetana albaabkii jannada inta la fura kow waxa loo yeedhay kii dambeed dhintay labada kii shahiidkee hor dhintay mooyaane kii dambeeyey ayaa loo hor yeedhay markaasaa haddana loo yeedhay buu yidhi kii shahiidka noqday kadib baa aniga laygu yidhi buu yidhi adiga weli wakhtigaagii may gaadhin warkiibaa saxaabada gaadhay waa la isla dhex maray dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi miyaa la yaabantiin haabay yidhaahdeenoo labada nin dee ka hore nala dadaal badnaa kii hor dhintay ee weliba jihaadka galay ee shahiidka noqday kaas baa dee dadaalkiisu nala badnaa bay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey alaysa qad makatha haada bacdahu bisana kani kan dabadii miyaanu sanad noolayn buu nebigu yidhi waxay yidhaahdeen haa waa noola ramadaanna waa soo gaadho waa soomay oo waa tukaday oo masaajidkuu ku tukaday soomaha buu nebigu yidhi sanadaasi markaasay yidhaahdeen haa kadib buu nebigu yihi famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaa'i waalard labada nin waxa u dhaxeeya inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa yacni kan cimriga dheeraadkaa la siiyey ee dabeetana cimrigii dheeraadkaa bil ramadaan weliba u soo gashay ee bishii ramadaan soomay ee masaajidka salaada ku tukanayey ayuu nebigu wuxuu tilmaamayaa acmaasha uu samaystay ee kaa hore ka xidhmay inay dhaafinayso kii hore acmaashaana wuxuu nebigu ka tilmaamay soon iyo salaad idan hadday qiimaha intaa leeg ramadaan iyo ajarka la helaa sidaa u weyn yahay waxaa habboon in ramadaan loo diyaar garoobo oo aan cunno loogu diyaar garoobin dadku inta badan waxay dhaha bishii ramadaan baa soo gelaysa dabeetana reeraha biilkooda la kordhiyayo cunnada aada loo badsadaa cunnaduna waa wixii laga soomayeyba waxay ahayd bishan in biilku hoos u dhaco oo dadku cunnada yaraysto oo la soomo aakhiriya adduunba saasay faa'iidadu ku jirtaa waxaan rabaa markaa laba qodob oo qura inaan tilmaamo labada qodob waxay yihiin ramadaan kow
waa bil qofka muslimkii uu u diyaar garoobo inuu dembiga iska reebo. waa bil uu u diyaar garoobo qofka muslimka ahi sidii sanadka ama cimrigiisaba intii tagtay dembigii soo raacay uu isaga maydhi lahaa. hami lmakfira waa inuu ku noqdaa agteenna hami aad u weyn, waayo dadku saxaabada matala nebigu calayhi salaatu wasalaam baa nin u yimi saxaabiyi, markaasuu wuxuu yidhi nebigu markuu ka warramay jihaadka iyo aliimaanu billaahi iyo in la jihaatamo iyo acmaasha ugu fiican inay tahay, ayuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haddaan dagaal galo oo jihaatamo lay dilo dembigayga ma la dhaafayaa? dabeetee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam, in qutilta fii sabiili illaahi wa anta saabirun muxtasibun, haddii aada dhimato ilaahay dartii jidkiisa laguu dilo adigoo sabraya oo xisaabsanaya oo soo jeeda waan dhabar jeedin oo sii ordaynin haddaad sidaa ku dhimato haabuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkii baa haddana uu nebigu su-aashii dib ugu celiyo markaasuu yidhi kayfa qult, maxaad igu tidhi? ninkii baa warkiisii ku celiyey, waa dembigayga ma la dhaafayaa haddii aan dee jihaatamo geeriyoodo? nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haa waa la dhaafayaa. intii hore u sheegay buu nebigu yidhi ila dayn mooyaane, daynta bini aadamka xaqiisa inta laga qaato oo loo indhacaseeyo kaa isaga la dhaafi maayo. jibriil baa hadda ii sheegay buu nebigu yidhi, xadiisku saxiixu muslimku ku yaala. idan waxaad arkaysaa saxaabadani hamigoodu inuu ahaa dembigayga ma la dhaafaya. waxa uu raadcaynayaa waxa weeyaan xataa jihaadkan iyo baabkan oo dhan inuu dembi dhaaf helo. si awgeed ba ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa duul kale oo muslimiinoo hamigoodu ka ahaa. fircawn saxaradii ka hor timi ee nebi muuse markii mucjizaadkiisa ay arkeen ilaahay rumeeyey, fircoon waa hanjabay oo wuxuu yidhi waa idin laynayaa, gacmaha iyo adimadan talantaa laydin goynayaa oo waa idin salbinayaa, geedkaan idinku xidhayaa oo saasaan idin gelayaa buu ku hanjabay. waxay iyaguna ugu jawaabeen saa qur-aanka rabbi ku tilmaamayo, qaaluu laa dayra inaa ilaa rabbina munqalibuun inaa naطmacu an yakfira lana rabbuna khataayaana an kuna awala almu'miniin. dhib uma aragna bay leeyihin waxaad sheegaysa oo dhan, ilaahay xaggiisaanu u noqonaynaa waayo waxaanu rajo ka qabnaa bay leeyihin in ilaahay dembigayaga dhaafo ayaanu rajo ka qabnaa maadaamaanu noqonay awala almu'miniin. xadiidka iyo aayadda qur-aaniba waxay tilmaamayaan marka hamu lmakfira say dadku uga fakerayeen dembigooda inaan la dhaafo, waxay dhaafsanayaanna uu yahay inay naftooda waayaan. haddaba ramadaan waa fursad qaaliya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxyaabaha koowaad ee ramadaan laga helaa inay tahay meel dembiga qofku iskaga maydho, misfaat uu qofka muslimkaahi xamaamu dembiga iskaga maydho, uskagiisa uu ku reebo. si awgeed baa axaadiista saxiixeynka ku soo arooray wuxuu nebigu tilmaamayaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi. qofka ramadaan sooma isagoo rumaysan alle iyo rasuulkiisa iyo aakhire iyo ajarkeeda iyo wixii la faroo dhan isagoo rumaysan, waxtisaaban ilaahay dartiina u soomaya. casrigan aynu maanta nool lahay dee soonku waabu iska tiro badan yahay isagoo noocayaa. soon siyaasiyaa jiro la yidhaahdo dad baa dowladda ka hor yimo afkay xidheen oo cunnaday ka soomeen.